السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada asxaabta kusoo dhawaada youtube-ka Cabdikariim Daahir, sidoo kale page-ka Cabdikariim Daahir soo dhawaada asxaabta. Maanta muuqaalka ahaayo waxaa waaye qaabka iskaga xiri kartaa xaysiimaha. Waxaa jira hore muuqaal u suubiya xaysiimaha xiraayo, sidoo kale maanta waxaa suubina inaysan dhammaan xaysiin aysan ku soo dhicin. Haddii tusaale ahaan Facebook oo kale aad booqatid ama YouTube oo kale ama page oo kale ama Chrome oo kale isticmaalaysid ama application-ada qaar waxaa aragtaa xaysiimo tiro badan. xaysiimaha sida iskaga xiray muuqaalkan ayaa ku saacidi doona insha Allah. Marka waxaa suubina qaabka xaysiimaha iskaga xiri kartid, muuqaalka ayaa u guda galayna. marka ugu horeyso waxaa galay qaybta setting-ga taleefankaada. Settings ayaa galay, kadib waxaa ka doornay meesha ugu koreyso connections-ka oo Wi-Fi internet-ka ka gashid. Connections marka dooratid waxa u soo degay qaybta hoose ayaa u soo degay. Waxa ku arkay meel ku qoran tahay more connection. More connection ayaa sii dooranay. Waxa u maanay qaybta hoose ayaa u maanay oo private DNS domain names-ka. qaybtaas ayaa dana dooranay. kadib off iyo automatic iyo sidoo kale private ayaa kugu qoran saddex choice inaad mid dooratid. mid ka mid ayaa dooranay marka. waxaa dooranay midka ugu hooseeyo oo private-ka. waxaa ku qoray meesha marka dns.adguard.com. muuqaalka intaana ka bixin waxaa arkay cilada ayaa arkay. waxaa laga yaabaa suurtagal in adin hadhow ciladaas ku qabsato. haddii aad isticmaalaysid internet oo kale kugu xiran yahay Wi-Fi modem-iska oo xaafadaha internet yaalo oo koodkii hadda waxyaabaha hadda suubina ay la socotay. connections ayaa soo dooratay, kadib waxaa dooratay more connections, kadib private DNS kana ayaa automatic sida ayuu noo qornay. kadib meeshaan waxaa ku qornay qaybta dns.adguard.com. meesha ugu dambeyso muuqaalka kuma sharxin safe hadhihin. marka koodka gashitid kadib truth waaga bax. haddaad save gareysatid isla markii internetka qaybta oo internetka Wi-Fi-ga calaamad ayaa laga saaraa ku shaqeynay. hadda private DNS-ka ayaa doorana, kadib safe hadda aan dhaho asal arkeen hadda aniga internet ayaa igu xiran. hal mar oo save gareyna. marka save gareysan markii fiir meesha way isbedeshay could not connect ayaa soo baxday. marka could not connect marka ku soo baxdo kadib waa ka laabanaa isla markaa internetka igu xiran waa kana korna wuxuu ku soo qoraa farxiyo has no internet connection. hadda internetka ima shaqeynayo calaamad exclamation ayuu saaraa waa ujeedin. marka ma shaqeynayo. maxaa suubina markuu sidaan oo kale iga noqdo isla sidii waa ku laaban kartaa oo mobile more connection settings-ka. kadib private DNS kana dooranay. meeshaan hadda sidaan waa tirtiray. iska tirtiri kartaa. marka iska tirtirtid kadib off ayaa iska dooray ama automatic oo kale. kadib waa save gareynay. waa ka soo baxay internetka calaamadii waa laga qaado ku shaqeynaa. kadib ku laabo ha save gareynin laakiinse koodka marka qoratid ha save gareynin ka baxlay bas uu ku shaqeynaa markaas. kadib wax ku soo dhacayo oo xayisiin ma jirto. waa masantiin daawashada muuqaalka aad daawateen aad iyo aad u